بسم الله. السلام عليكم صاحب يلوني عبد الجليل عثمان halkan waxaan ku hayaa in ka badan 6 boog oo ku qoran luqadda Ingiriiska kuwaasi oo aan u soo xulay dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku xiran janaalkayga Cabdijaliil Barow. 6dan boog waa 6 boog oo aan ugu talagalay in aad ku improve gareysaan luqadda Ingiriiska isla markaana ay wax badan ka bedelaan noloshooda. Muuqaalkii ka horreeyay waxaan kaga hadlay sidee ayaa loo bartaa luqadda Ingiriiska laakiin waxa ku jira oo shardi ah in aad hesho boog Ingiriis ku qoran isla markaana aad ku akhriso luqadda Ingiriiska laakiin dhalinyaro badan ayaa waxay soo weydiiyeen boog noocee ayaan akhriyaa sidee ayaan ku heli karaa boog Ingiriis ku qoran ee aan akhriya si luqadda reading aan improve gareeyo ana waxaan ka fakaray anigoo maskaxdaydan yar adeegsanay sidee ayaad ugu gudbin kartaa dhalinyarada Soomaaliyeed بوغاغ لغة إنجليز كقرن إسلام كان لغة إنجليز كأي كو improve كرين كران كلية ما لغة إنجليز كإنا improve كريانا نولش شود أو دن أي improve كرين كران وأنا لح بوغ أو أنا إسليه هاي قف كرن يرضاه قعنت كل جي آخرية نولش يسوح بدنا أي كبدلي دوران إن شاء الله دوالد لغة إنجليز كنا واد improve كرين دونتا نولش هذا واد improve كرين دونتا بإذن الله كريم at the end of this video and muuqaalkii ka horreeyay luqadda Ingiriiska ayaan kaga hadalay kana waxaan kaga hadli doonaa 6dan boog iyo sidoo kale shuruucda loo yaqaan 20 saacadood ama xeerka 20 saacadood kaasi oo ku sahlay in aad xifdiso waxa aad baratay ama in aad kaydiso oo maskaxdaadu aanay sii daynin wax kasta oo aad baratay waxa laga yaabaa in imtixaanka aad u fariisatay laakiin aad ilowdo wixii semesterkaasi oo dhan aad soo baratay ama baad isleedahay waxaan bara luqadda Ingiriiska hanaqota programming language hanaqota AI hanaqota cloud computing cyber security machine learning wax ka sinaad barataa laakiin marka aad caaw barato oo aad saaxada barito wixii maskaxdii way ka sii bixin talo xaqii aadan way maskaxdeena sidaas noo inay jabsan ma fahmi kara laakiin muuqaalkan saaxiib waxaan idin kula wadaagi doonaa sidee ayaan ku kaydiyaa oo ay maskaxdayda u kaydisaa oo aan ugu raajiyaa oo aan ku kaydiyaa waxa aan bartay isla markaana luqadda Ingiriiska aan ku improve gareeyaa nolosheeduna aan improve gareeyaa 6dan boog ayaan dul istaagi doonaa iyo xeerarkaasi haddii aad halkan ku cusub tahay magacaygu waa Cabdijaliil Cusmaan Cabdijaliil Barow ayaad igala socotaan oo ah janaalka dhalinyarada iyo tiknoolajiyada waxaan leeyahay janaal kale oo siyaasadda lagaga hadlo oo la dhahaa Cabdijaliil Show in ka badan 120,000 ayaa ku xiran oo siyaasiyiin iyo hooyooyin iyo la xiriir aabooyin siyaasadda xiisay laakiin janaalkan waxa uu gaar u yahay dhalinyarada Soomaaliyeed iyo tiknoolajiyada haddii aad rabtaan in 120,000 aan gaarin isla markaana maalin kasta aan idin kala hadlo tiknoolajiyada iyo waxbarashada iyo si aad noloshiina u horumarisaan haylowin inaad maanta nagu soo biirsan qof kasta oo nagu soo biira oo hal subscriber waxa uu noo yahay dhiirigelin waxa uu nagu dhiirigelinayaa in muuqaal kale oo kan ku xiga aan soo sameeyno marka mo subscribe mo video soo dhawaad saaxiib muuqaalka ayaan gudaha gali doonaa waxaan ku bilaabi doonaa inta aan buugaagtan dul istaagin oo qaarkood ay ka hadlayaan qof Soomaali siyaasadiisa talo waa kee qofka ugu siyaasadda wanaagsan Soomaalida ah geeska Afrika ee ugu saameynta badan ayaa booggiisa halkan uu ku jira inta aad daawanayso muuqaalkan qofkaasi ka sii fakar qofku uu yahay waa qof geeska Afrika saameyn ku leh isla markaana siyaasi ah booggiisa ayaan halkan idin kula wadaagi doonaa kaasi oo aan rajaynayo in uu wax badan ka bedeli doono noloshiina insha Allah dhalinyaro aad u mahadsan laakiin buugta xaggaasi inoo dhigo waxaan eegi doonaa sidee bal hor intaan wax baran sidee waxaan barana u kaydina oo aan maskaxda ugu kaydina السلام عليكم مجيء ومرسل وحكمت أهاي شبكة Connect Wave أو شبكة كشقيسة ديجيتال ماركتينج شبكة وحكو حيران دتك وسهم من تبادل براه برشة مانتا كواسو أي كحرينيين ملايين خفوت وكل نول دون الدافع هذا شبكة Connect Wave وحقول تاجن تاي اسكو حركة جناح سجاجة يمعاميشيسة نجلسوا حرير Connect Wave أو كالا يومان تكبري جناح سجاجة hadda waxaan ku hormari doonaa waxa loo yaqaan sidee ayaa wax loo bartaa isla markaana loo kaydiyaa wax la barta taasi waa su'aasha isweydiinta mudan oo dad badan ay fahmi laayeen sida ay wax u baran lahayn isla markaana wixii ay barteen ay u kaydin lahayn waxaan kugu wadaagi doonaa research la xiriira the first 20 hours or how to learn anything fast waa boog uu qoray nin loo yaqaan ama nin loo yaqaan Josh isla markaana ka hadlaya 20 saacadood ee ugu horeysa sida loo xifdiyo wax isla markaana loo barto bogan waxa uu ka hadlayaa sida guud ahaan waxa aad baratay isla markaana takhasusaadka aad baratay iyo xirfadaha aad baratay aad ugu guuleysan lahayd isla markaana loo noqon lahayd qofka koobaad ee waxaasi loo daba
increase isla markaana loogu dambeeya haddii aanu si guud u eegna xeerka 20 saacadood ee ugu horeeya sida uu qoray Josh Bugiisa how to learn anything faster tan koobaad ama xeerka koobaad ee la xiriira xeerarka ama qaanuunka 20 saacadood waxa uu yahay in aad deconstruction ku samayso ama aad kala qaybisa ee aad jajabiso oo aad qayb aad u kala jabiso waxa aad baranaysa marka aan dhaha waxaad baranayso waxay ka dhigan tahay xirfadda aad markaasi baranaysa iyo aqoonta aad markaasi baranaysa iyo waxa markaasi imtixaanaadka ah ee kugu taagan waxa koowaad waxay tahay inaad samayso lagaga baahan yahay waxa loo yaqaan deconstruction oo ah inaad kala jajabisa isla markaana aad yareereyso oo sida ay u kala yaryihiin aad u kala horumaraysa isla markaana sida ay u kala weyn yihiin aad ugu tagta tusaale ahaan haddii aad rabto inaad barata waxa loo yaqaan programming haddii aad rabto inaad barata waa inaad ka bilowdaa meesha ugu hooseysa amaba basic fundamentalka aad ka barataa ilaa iyo halka ugu horeysa for example waxay dhahaan waa inaad barataa front end developer kadibna aad back end noqotaa sidaasna aad u wadaa marka waa sharciga kood waxa uu yahay deconstruction inaad ku samayso wax kastoo aad baranaysa isla markaana aad jajabiso oo aad kala qaybiso arrinta labaad waxay tahay learn enough to practice waxay ka dhigan tahay in aad hesha resource-ka loo baahan yahay isla markaana ay qayb ka noqdaan waxbarashadaada haddii aan aniga laftayda tusaale usoo qaato marka aan rabo inaan wax barta haddii uu yahay buug wax la xiriira waxaan marka hore raadiyaa cajalada iyo muuqaalo arrintaasi laga sameeyey isla markaana waan soo dhageystaa markaasi kadib ayaan usoo laabtaa wixii aan jeclaan lahaa inaan xifdiyo haddii aan rabo tusaale camal inaan xifdiyo sida uu u shaqeeya serverka sida u shaqeeya amaba DNS sida u shaqeeya amaba sida u shaqeeya router amaba wax kasta switch inaan fahmo haddii ay rabo isla markaana uu imtixaanka iigu jiro waxaan marka hore tagaa YouTube-ka isla markaana waxaan raadiyaa resource arrintaasi la xiriira ama muuqaalo arrintaasi la xiriira waan soo daawadaa muuqaalo video arrintaasi la xiriira waxaan galaa internetka waxaan raadiyaa resource iyo article arrintaasi laga qoray kadib marka aan u soo laabta casharkii markaasi iyaalay aniga oo faham guud ka haysta waxaasi ayaan u soo laabtaa buugi isla markaana sidaasi ay iigu fududaataa marka waa waxa loo yaqaana get enough to practice oo ah in marka hore aad raadiso resource laakiin resource-kaasi waa in aanu noqon mid aad ka wahsatay inaad raadiso tusaale camal in aad buugaag raadisa arrintan laga qoray in aad raadisa videoyo mawduucan laga sameeyey taasi yaanay noqonin hab aad wahsi kugu biiriya balse waa inuu ku noqdo hab kuu fududeeya wixii aad akhrin lahayd isla markaana kuu fududeeya wixii in aad fahantay arrinta saddexaad waxay tahay saaxiibayaal wax loo yaqaano remove barriers oo ah in aad meesha ka saarto wax kasta oo carqalad ku noqon kara wax akhriskaaga haddii ay ahaan lahaayeen notification telefonkaaga kusoo dhaca internetka iyo telefishanka arrimahaasi haddii aad research soo samaysay oo aad soo fahantay wixii aad akhrin lahayd isla markaana aad muuqaalkaas soo daawatay marka aad dul timaada buuggii casharkaasi uu kugu qoray ama notebookii isla markaana aad u baahan tahay inaad xifdisa casharkaasi waa in aad iska xirtaa telefonka isla markaana internetka aad iska damisaa isla markaana aad qol isku xirtaa kaasi oo ku sahlayay in waxaasi ay maskaxdaadu si weyn u fahantay isla markaana ay u dhuuxdo telefoonada waa waxyaabaha ugu badan ee aan wax la baran la'nahay social media sidoo kale sidaas si lamid ah wax dhibaatada ugu badan ee aan wax la xifdin la'nahay oo aan wax la qaban lahayn sababtoo ah markasta oo aan buugi kala furno markasta oo aan casharkii furno markasta oo notekii accesskii aan u fariisano notification ayaa halkaasi ka soo dhacay markasta oo notification ku soo dhacana way adag tahay in dib xusuustaadii maskaxdaadii ay wixii ugu soo laabtaan marka haddii aad rabto inaad wax xifdiso oo aad wax barato oo aad wax kaydisa waa in aanay jirin waxaasi wax attentionkaaga ka leexinaya amaba 100% attentionkaaga aad waxaasi siisa telefonka notificationka waa inaad ka xirtaa internetka waa inaad ka xirtaa waa inaad flight mode iska saartay isla markaana qol kale aad iska dhigtaa adiga kaa fog aan gacantaada waan ogahay haddii telefonka uu gacantaada gaari karo uu ka soo horbaxayo in dhibaato badan uu kugu sameyn karo isla markaana ay sahlan tahay inaad bal fiiriso in saaxiibka uu fariin kuu soo diray notification kuu soo dhacay TikTok live lama soo galay Facebook qabiile wax lagagama hadlay dhibaatooyinkaasi dhan waa ayna wada haystaan waan isticmaalnaa baraha bulshada laakiin
waa in aad ka digtoonaataa amaba aad remove all the barrier aad ku sameysaa in meesha aad ka saarto wax kasta oo distraction kugu sameyn kara waxaan ognahay sidoo kale saaxiibayaal marka ay noqoto skillska la baranayo in heerar kala duwan uu leeyahay qofka in uu ku wanaagsanaado inuu expert ku noqdo inuu khabiir ku sii noqdo arrintaas uu ku wanaagsan laakiin adiga dhalinyarada ah u baahan inuu wax barto isla markaana u baahan in xirfadaas uu ku shaqeyso waxaad u baahan tahay in aad good ku noqoto laakiin uma baahnid inaad excellent ku noqoto ama expert aad ku noqoto midkuba marka mar kasta oo aad wax baranaysa ha isku dayin in waxaasi aad expert ku noqota sidoo kale ha isku dayin in waxaasi boqolkiiba boqol aad wada xifdiso oo aad cram gareyso waxaasi dunida kama jiraan ma jiro boqolkiiba boqol qof wax xifdisa mana jiro boqolkiiba boqol qof wax kasta expert ku ah dunida teknolojiyadana hadda wax kasta haddii aad fahansan tahay basicka waa in aad adigu qaadataa tilaabooyinka kale isla markaana aad naftaada horumarisaa marka waa in aad sameysa saaxiib yaal wax loo yaqaan remove learn enough to practice oo ah inaad practice gareysa isla markaana aad adeegsata resource iyo toolska aad heli karta arrinta afaraad saaxiib yaal waxa ay tahay practice for 20 hours oo ah in aad 20 saacadood waxaasi gelisa 20 saac waxaasi aad gacanta ku qabatay maanta aad rabta inaad barata xirfadaasi waa in 20 saac ee ugu horeyso noloshaada aad waqti gelisa isla markaana aad ku celcelisaa oo aad dib u booqataa oo aad dib u xusuustaa isla markaana aad isku daydaa sidii arrintaasi aad maskaxdaada ugu dhaadhicin lahayd 20 saac ee ugu horeysa waxaa sidoo kale space repetition ayaa halkan soo galay oo ah in wixii lagu celiyo for example haddii aad موضوع توبيك ما أنت أخرسي لحريرة عشر لحريرة أما دروس الوصول ما أنت لحريرة أعترفتها إن امتحانك أتكون باس سمستر مركو هذا وإن ما أنت كوبات aad soo akhriso marka laga taga maalinta saddexaad aad 10kaasi dib ugu laabata ama mowduucaasi aad dib ugu laabata oo aad dib u akhrisaa sidoo kale waa in aad akhrisaa maalinta 7aad sidoo kale waa in aad akhrisaa maalinta 14aad halkan waa wax loo yaqaan saaxiibayaal space repetition oo ah in qofka uu ku celceliyo waxaasi isla markaana sida in aad geed waraabinaysa camal maanta aad ku celisaa 3 maalin kadib aad ku celisaa 7 maalin kadib aad ku celisaa 14 maalin kadib aad ku celisaa taasi waxay ka dhigan tahay in 2 isbuuc wax muuqaalkii kan ka horeeyay la xiriirsay Ingiriis loo barta waxaan kaga hadlay in 2 hours rule waxa la jireen 2 weeks rule waxa la jireen oo ah in 2 isbuuc ee ugu horeysa xirfad kasta ee wax kasta oo aad jeceshahay in aad barata aad meel kaga gaari karta isla markaana ay noloshaada wax weyn ka bedeli karta marka space repetition saaxiibayaal waa in aad qaadataan laakiin maalintaas sidoo kale maxaad sameyn kartaa maalintaas waxaad sameyn kartaa saaxiibayaal wax loo yaqaan learn in short burst oo ah in soddonkaasi daqiiqe aad wax baranaysa ama saacadaasi aad wax baranaysa saaxiibayaal 25 daqiiqo marka aad galaaska ku jirta ama aad darsigaasi wada aad break qaadata kaasi oo ah 5 daqiiqo oo break isla markaana aad dib ugu laabata waana wax loo yaqaan inaad programming language barata ama aad rabta in aad concept barata saaxiibayaal waa in saacad marka aad baranaysa aad break qaadata la xiriira 5 daqiiqo ilaa 7 daqiiqo qof aad jeceshahay la hadal waxaad jeceshahay samee exercise yar samee koob shaah cab saaxiibka la hadal waalidka la hadal qof aad xiriir leedin la hadal 5 daqiiqo wax badan ay maskaxdaada ka bedeli doontaa isla markaana marka aad dib ugu laabato buugga waxa kale oo aan idin kula talinayaa saaxiibayaal arrimaha waxbarashada iyo marka laga hadlayo in aad aad sameysaan wax loo yaqaana community aad dhisataan isla markaana aad adeegsataan platformka loo yaqaano Discord community saaxiibayaal wuxuu idinka caawinayaa in idinka oo 20 ruux ah oo mowduuc isla barta tusaale camal haddii aad jaamacad isla dhigataan 20 ruux oo ka mid ah inaad isbahaysataan isla markaana aad team dhisataan oo aad group samaystaan haddii uu noqon lahaa Snapchat haddii uu noqon lahaa Discord haddii uu noqon lahaa Telegram ama WhatsApp isla markaana halkaasi aad ku muraajaceysaan maanta dunida 20 ruux oo qaaradaha dunida kala jooga ayaa hal meel wax ku wada baran karta sababtoo ah waxa laga yaabaa in aad adeegsan kartaan Zoom baad adeegsan kartaan oo 40 daqiiqo free ah 40 daqiiqo oo Zoom ah haddii aad soo kiciso qofka jooga Garowe ayuu soo gali karaa kan Kismaayo uu soo gali karaa kan Muqdisho uu soo gali karaa Gaalkacyo iyo Dhuusamareeb iyo Guriceel meel kasta qofku uu joogo Zoomka ayaad la soo degaysaan waxaad raadinaysaan marka mowduuc arrintaasi la xiriirto tusaale camal haddii aad rabto inaad luqadda Ingiriiska barata haddii aad jaamacad dhigata qofka aad isku fakalti tihiin
aad rabtaa inaad wax bartaan zoomka ayaa soo kicinaysaa isla markaana maanta 5 galabnimo aanu zoomka isugu nimaana 40 daqiiqo aanu saas ayaan sameeyaa asxaabtana wax wada barana 40 daqiiqo ayaan wada qaadana oo ah inaan zoom isugu nimaana halkaas aan casharka ku maraajiceyna isla markaana aan kala tagno zoomka haddii aad uma baahnid inaad lacag ka bixiso waa free safe inaad community dhisataan arrintaasi jaamacadaha ardada dhigta jaamacadaha kala duwan dalka dhigta fadlan sidaas ayaad samayn kartaan screen sharing ayuu leeyahay muuqaal qof ka mid ah ayaa marka screenka idinla wadaagi kara oo aad ka codsan kartaan inuu mawduucaasi idin sharxa isla markaana qofka labaad ayaa loo dhiibi karaa si uu mawduuca kale u sharxa qofka saddexaad ayaa loo dhiibi karaa si uu mawduuca kale u sharxa marka communityga researchada la sameynaya iyo arrimaha la xiriira sida wax loo barta door weyn ayay ku leeyihiin kaalin weyn ayay ku leeyihiin marka haddii aad tahay qof wax baranaya fadlan community dhiso discord hagaajista safar isla markaana halkaasi ku kulma waxna ku barta marka arrintaasi laga soo tagay saaxiibayaal aan rabay sidee wax loo bartaa isla markaana waxa aad baratay loo keydiyaa oo dulmar guud aan ku sameynay dabcan anigu expert mihi weli arday ayaan ahay laakiin waxaan rabaa inaan idinka faa'iideeyo arrintaasi oo dhammaanteen aanu noqono dad wixii ka wada faa'iido marka laga soo tagay sidee wax loo bartaa isla markaana loo keydiyaa waxa aad barata halkan waxaan ku hayaa saaxiibayaal sidaan idiin sheegay ilaa iyo 6 buug kuwaasi oo aan jeclahay inaan idinla wadaaga buugagtan waxaan idinkula wadaagayaa 2 arrimood kow in ay wax ku kordhin doonaan noloshaada isla markaana ay wax ka bedeli doonaan inta ugu badan buugagta saaxiibayaal waad maqasheen ama waad aragteen ama hore ayaad bu akhriseen ama mawduucyo ayaa laga sameeyay ayaad aragteen laakiin mawduucan sababta idinkula wadaagay aan idinku soo dhexdiray waxa ay tahay saaxiibayaal dhalinyarada muuqaalkii ka horreeyay aan la wadaagay oo ahaa sidee luqadda ingiriiska loo bartaa waxaan ka codsaday in ay raadsadaan buug ingiriis ku qoran marka waxaan is dhahay buug ingiriis ku qoran kaliya la wadaagin waxaad la wadaagtaa buug ingiriisna ku qoran isla markaana ay wax ka faa'iidanayaan dhalinyarada Soomaaliyeed oo noloshooda wax ka bedeli kara waana sababtaan idinku raadiyay buugaagtan isla markaana aan hadda idinku soo bandhigay in aad luqadda ingiriiska ka korarstaan tusaale camal qaabka ereyada loogu dhawaaqo oo pronunciation aan ka wada hadalnay iyo sidoo kale qaabka akhrinta marka aad ingiriiska akhrinayso wax badan ayay idinka afficdaan marka labadaas sababood ayaan idinkula wadaagayaa kow oo ah inay yihiin buugaag noloshiin wax ka bedeli doona oo la xiriira dhammaantood isbedelka iyo sidoo kale in luqadda ingiriiska aad ku baran kartaan inaad ku muraajaceysaan amaba aad ku dulmartaan buuggii kan ka horreeyay buugaagtan waxaa ugu horeeya listiga halkan buugga loo yaqaana aad wada aragteena laga yaabaa Eat That Frog buuggan rag badan oo asxaabnahay ayaa aad uga hadlay isla markaana muuqaalo ka sameeyay Mobian ayaa ugu dambeeyay aan saaxiibanahay oo aan muuqaalkiisa hoos idin dhigi doono si wanaagsan ayuu u sharxay waana buugga loo yaqaan Eat That Frog oo ah cun raxaasi halkaasi taagan marka waxa laga yaabaa inaad dhahdo rax la cunay muxuu laakiin waa buug macno badan sameynaya summary badan yar ayaan ku sameeyay oo kooban oo ka hadlaya buuggan iyo muhiimadii ahmiyadda uu idin leeyahay Eat That Frog waxa qoray Brian Tracy waana buug ka hadlaya saaxiibayaal sida howlahaaga ama howl maalmeedkaaga ku yaala loo kala horumariyo isla markaana priority loo kala siiyo waxa uu sidoo kale idinla wadaagayaa saaxiibayaal in shaqooyinka kuwa fudfudud maalintaasi aad hor qabatay inta kuwa culus aan la gaarin waxa uu buuggan idin sharxaya saaxiibayaal in marka hore aad tastiga ku yaala maalintaas ama shaqooyinka maalintaas ku yaala saaxiibayaal aad priority siisa kuwa fudud isla markaana kuwa culus awoodda leh amaba waqti badan ka qaadana aad dib u dhigato buuggan Eat That Frog aniga waxaan ka iibsaday mar aan Muqdisho tagay bishii July sanadkan ayaa waxaan ka iibsaday Xayaat Market ayaan ka iibsaday qiimihiisuna waxa uu ahaa $3.50 ayuu marka haddii aad Muqdisho joogta buuggan Eat That Frog Xayaat supermarket ka ku yaala xaafadda hodan ku yaala adigu xaafadda I can't remember xaafadda ahayd laakiin Cabdicasiis Shangani aad Xayaat supermarket ayaad ka heli doontaa buuggan Eat That Frog waa buug aad u yar oo aad Brian Tracy ayaa qoray waxa uu ka caawinayaa luqadda ingiriiska inaad akhrin kartaa isla markaana aad fahmi kartaa isla markaana sidoo kale noloshaada ayuu wax weyn ka bedeli doonaa marka Eat That Frog ayaa noqon doona buugga koobaad aan idinku dhiirigelinaya in aad eegtaan isla markaana aad waqti gelisaan waxaa ku xigay saaxiibayaal oo kaalinta labaad ku jira buug aan ogahay in aad wada akhriseen amaba qaarkiin ay xog badan ka hayaan oo ah buug loo yaqaana
Rich Dad Poor Dad buugan sidoo kale saaxiibayaal waxaan ka iibiyey Xayaat Supermarket $4 ayuu qaybihiisa ah magaalada Muqdisho ay haddii aad joogto ama gobolada dalka haddii aad joogto magaalada Muqdisho ayaad ka soo dalban kartaa delivery iyaga ayaa I'm not sure saaxiibayaal inaan idin keento laakiin qof ehelkaaga asxaabtaada Muqdisho ku sugan haddii aad Garowe iyo Dhuusamareeb iyo Gaalkacyo iyo Kismaayo ku sugan tahay iyo Guraceel waxa laga yaabaa in aadan ka helin supermarketyada magaalooyinka laakiin Muqdisho waxaan hubaa in Xayaat Supermarket aad ka heli doonta buugan Robert la xiriira Rich Dad Poor Dad buugan faahfaahin badan kama bixin doonto sababtoo dad badan waxaan aaminsanahay in ay xooga ka hayeen isla markaana ay aad u akhriyeen isla markaana ay ka dharagsan yihiin buugan iyo waxa uu ka hadlay waxa uu overall ka hadlaya waxa loo yaqaan dhaqaalaha iyo sidoo kale financing dhaqaalaha iyo sidoo kale sida arrimaha dhaqaalaha finance la xiriira ayuu buugan si weyn uga hadlaya waxa sidoo kale uu hadlay waxa loo yaqaan financial education oo ah in qofka horta inta aanu lacag ka fikirin marka hore bar lacagta iyo sida uu u shaqeyso uu fahmo ayuu ka hadlaya sidoo kale waxa uu ka hadlaya mowduucyada uu ka hadlaya kamid ah in qofka uu risk qaato noloshiisa isla markaan risk taker uu noqdo haddii ay noqon lahayd investment iyo haddii ay noqon lahayd anything else waxyaaba kale oo ka hadlaya saaxiibayaal buugan waxaa kamid ah in guuldarrada cashar laga baran kara isla markaana mar kasta aan la guuleysan oo mar kasta oo aad guuleysata ay halkaasi ku jiraan casharay cibaarooyin waaweyn oo aad noloshaada mar kale dib ugu kabi doonto overall wuxuu ka hadlayaa buugan saaxiibayaal waxa loo yaqaana financial education ayuu si wanaagsan uga hadlaya oo ka sharxaya sababtaan idinku soo qaatin waxa ay tahay kow in uu noloshiin wax ka bedela iyo laba in uu idinka caawiyo saaxiibayaal luqadda Ingiriiska labadaasi muhiimad ayuu nolosheena u leeyahay buugaasi buugga labaad saaxiibayaal sidoo kale waa buug aad taqaanaan oo halis badan meelo badan sida Mareykanka camal waa laga mamnuucay in la iibsado xabsiyada lagu iibiyay iyo Ingiriiskan camal waana buugan aad wada taqaanaan saaxiibayaal oo ah the 48 laws of power oo ah 48 sharci ee la xiriira ama xeerar ee la xiriira awoodaha waa buug dangerous ah rag badan ayaa ka sameeyay mowduucyo ayaa laga sameeyay muuqaalo kala duwan ayaa laga sameeyay dabcan waa aad ka dharagsantahay ayaan filayaa buugani waxa uu si wanaagsan uga hadlaya ama si faahfaahsan buugan uu ugu hadlayaa oo uu kaga hadlayaa waa tusaale camal haddaan usoo qaatay xeerka labaad waxa uu ku leeyahay weligaa ha aaminin saaxiibkaa bara sida loo isticmaala cadowgaaga iska jir saaxiibkaaga ayuu ku leeyahay marka sidoo kale waxa uu ka hadlayaa saaxiibayaal sida loo bartay in dadku ay adigu kugu tiirsanaadaan isla markaana aanay ka maarmin waa xeer kale oo halis badan oo halistiisa wata waana xeerka haddii aanan qaldaneen waana xeerka 11aad waxa uu ka hadlayaa sida dadka aad u isticmaali lahayd isla markaana aad u baran lahayd in dadka adiguna ay kugu tiirsanaadaan xeerka todobaad saaxiibayaal waxa uu ka hadlayaa get other people to do work for you but always take the credit oo in dadka kale ay adigu ku shaqeeyaan isla markaana credit-uga aad adiga qaadato oo ah in adiga aad shaqadaasi qabatay sidoo kale waxa uu ka hadlayaa saaxiibayaal crush your enemy totally oo ah in cadowgaaga aad gebi ahaanba burburiso waa buug aad dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ayaa muuqaal ka sameeyay Mobin ayaa sidoo kale muuqaal ka sameeyay saaxiibkay qaybta description-ka ayaa idin soo dhigi doona marka waana buug noloshiinan wax ka bedeli karo oo qof halis badan ka dhigi kara isla markaana sidoo kale luqadda Ingiriiska aad ka baran kartaan haddii aad tihiin dhalinyarada wax barata Soomaali waad ka heli kartaa saan jeclaha I'm not sure laakiin waxaan filayaa sidoo kale Xayaat Supermarket inaan ku arkay ayaan filayaa mar aan tagay labada buug kale aan ka soo qaadanay marka sidoo kale raadi haddii aad Soomaali ku sugan tahay iyo haddii aad daafaca caalamka ku sugan tahay online ayaad ka heli kartaa oo aad ka iibsan kartaa waa buug wax badan noloshiina ka bedeli doona isagana luqadda Ingiriiskana aad ku xifdin kartaan oo aad ku baran kartaan buuggeena afraad saaxiibayaal waxa uu yahay buugga loo yaqaana the 4-hour week oo ah buuggan qaybta dhabarka haddii aad aragtaan buuggan waxa uu leeyahay disclaimer-kan waxa uu leeyahay ha akhrina buuggan unless you want a new way of living buuggan ha akhrina ilaa iyo in aadan rabin moogi inaad nolol cusub ku noolaato marka ciwaankiisu waa buuggan waa number 1 New York bestseller waay the 4-hour week ayaa la dhahaa escape 9 to 5 ayuu ka hadlayaa live anywhere and join the new rich waxuu ka hadlayaa saaxiibayaal dunida tiknolojiyadda iyo shaqooyinka iyo halka automationka iyo wax kasta isu bedeleen isla markaana lagama maarmaanka ay u tahay in 9 to 5 ka iyo traditional way of living nolosha dunida aad gabi ahaanba ilowdo isla markaana aad full potential aad noloshaada haddii aad buuggan akhrisa waxa xaqiiq ah saaxiibayaal in aadan qof dambe u shaqayn doonin oo aad noqon doonto qof
isaga iskiisa u shaqeysta isla markaana qaab freelancer u shaqeysta oo noloshiisa isagu ku tiirsanaada sidoo kale buugan saaxiibayaal waxa uu ka hadlayaa the 80-20 ruleska oo aan buuggii hore kaga soo hadalnay oo ah in sidoo kale waqtigaaga la qaybiyo 80-20 rules loo kala qaybiyo sidoo kale saaxiibayaal waxa uu ka hadlayaa sida noloshaada loo design garay isla markaana loo adeegsada waxa loo yaqaan automationka amaba in shaqooyinka AI-ga la adeegsada waxa uu ka hadlayaa saaxiibayaal sida agency loo sameeyo isla markaana arrimaha agency-ga iyo suuqa waxa ay ka gooyaan ayu si weyn diiradda u saaraya waa buug noloshiina wax ka bedeli doona isla markaana luqadda ingiriiska idinka caawi doona waa buugaasi saaxiibayaal aad ay u weyn yahay laakiin waxaan rajaynayaa in haddii aad akhrisaan oo aad fahantaan wax badan oo noloshiina ka bedeli doono isla markaana luqadda ingiriiska muhiimadda ugu weyn waxa ay tahay saaxiibayaal inaan idinka caawiyo in luqadda ingiriiska buugaag aad ku akhrisaan laakiin sidoo kale buugaagtaasi ay waxu noloshiina ka bedelaan waxaa ku xiga saaxiibayaal buugaan aad u jeclahay oo waxaan rajaynaya aanay jirin qof Soomaali oo weli hore uga hadli laakiin hadda ayaanu ka hadli doonaa waana buugan for the record buugan for the record saaxiibayaal waxa uu ka hadlayaa nolosha iyo siyaasadda Aadan Barre Ducaale wasiirkii hore ee difaaca dalka Kenya haddana waa wasiirka environment-ga haddii aan qaldanayn ee dalka Kenya Aadan Barre Ducaale waayihiisii siyaasadda ayuu koobayaa waxaana ciwaan looga dhigay for the record the inside story of power politics lawmaking and leadership in Kenya oo ah sheekooyinka la xiriira siyaasadda awoodda sharci dejinta iyo hogaaminta dalka Kenya Aadan Barre Ducaale saaxiibayaal buugan waxa uu kaga hadlayaa waayihiisa siyaasadda waxaana ku jira cashara ay lagama maarmaan tahay in aad ogaato gaar ahaan arrimaha siyaasadda iyo sharci dejinta waxa uu kaga hadlayaa maalintii uu hooyadii ka caawin jiray in meelaha shaha lagu gado ee Gaarisa uu u qoro lacagaha deynta ah ilaa iyo maalintii buugan uu soo saaray oo ah wasiirka difaaca dalka Kenya waa buug aad u xiiso badan isla markaana qof kasta oo raba dabcan kaliya ma ahan buug siyaasadeed waa buug dhiirigelin iyo siyaasad wada socda ah buuga Aadan Barre Ducaale haddii aad baalashiisa kala furto marna ma xiri doontid waxa uu ka hadlayaa dhowr jeer oo iskuulka laga soo ceeray isla markaana uu ku guuldareystay in uu qaado heesta national anthem-ka dalka Kenya waxa uu kaga hadlayaa siyaasadda iyo qaabkii uu ku soo galay waxa uu kaga hadlayaa waayihiisii jaamacadda waxa uu kaga hadlayaa waayihiisii siyaasadda ee kala duwanaa waxa uu kaga hadlayaa sidoo kale siyaasadda dalka Kenya iyo sidoo kale waxa loo yaqaan loyalty-ga amaba waxa loo yaqaan daacadnimada waxa uu ka kooban yahay buugan saaxiibayaal 370 buug ayuu ka kooban yahay Aadan Barre Ducaale noloshiisa oo dhan kaliya kagama hadlay waxa uu kaga hadlaya waxa loo yaqaan guud ahaan siyaasadda iyo sharci dejinta jabtarada buugan aad bay u badan yihiin jabtarka kood waxa uu kaga hadlayaa Bones and Stones oo ah meesha nolosha uu ka soo bilaabay Boys Town ayuu kaga hadlayaa waqtigii uu dhigin jiray waxa uu kaga hadlayaa Dreams riyooyinkii uu lahaa Moy ayuu kaga hadlayaa Families ayuu kaga hadlayaa Learning the Ropes ayuu kaga hadlayaa The Rehearsal ayuu kaga hadlayaa Victory ayuu kaga hadlayaa Loyalty daacadnimada ayuu kaga hadlayaa Public Service intuu ku jiro ayuu kaga hadlayaa The Break-ups ayuu kaga hadlayaa waxyaabaha oo siyaasadda iyo mararka ay kala tageen madaxda ay wada shaqeyn jireen A New Order ayuu jabtarka 100 iyo jabtarka 12 ay kaga hadlayaa jabtarka 14 Survival ayuu kaga hadlayaa Jason Bauer Deal or No Deal ayuu kaga hadlayaa war on terror dagaalada argagixisada ee Kenya ayuu kaga hadlayaa sidoo kale waxa uu kaga hadlayaa saaxiibayaal arrimaha doorashooyinka dalka Kenya 2017 doorashooyinka ay kaga hadlayaa things fall apart oo ah markii ay kala tageen isaga iyo ninkii ahaa Kenyatta ayuu kaga hadlayaa ma soo koobi kara saaxiibayaal waxa uu ka kooban yahay 32 jabtar ayuu kaga kooban yahay buugan oo la xiriira saaxiibayaal waayihii siyaasadda ee Aadan Barre Ducaale oo aad wada taqaanaan oo ah shakhsi awood badan isla markaana saameyn ku leh siyaasadda dalka Kenya isla markaana in muddo ah ku soo jiray for the record Aadan Barre Ducaale saaxiibayaal siyaasadda marka laga soo tago waxa ay sidoo kale ay ku barayso ay kugu dhiirigelinaysaa saaxiibayaal nolosha fakhriga ah iyo halkii uu ka soo bilaabay saaxiibayaal haddii aad isleedahay
noloshaada guul ma gaari kartid noloshaada wax ma qabsan kartid laakiin waxaad ogaataa saaxiibayaal in dadka ay scratch nolosha kasoo bilaabeen sida aadan bare ducaale isagoona shaha dadka ka caba maqaaxida hooyadii mararka qaarkood u qori jiray lacagaha deynta u qori jiray ayuu kaga hadlayaa siyaasadii xildhibaanimada ayuu kaga hadlayaa iyo xifaaltankii inkastoo dad badan uu ka guuleystay waxa uu si gaar ah u taabtay bugan uu ugu taabtay oo kaga hadlaya saaxiibayaal isaga iyo ninkii ahaa Faarax Macalin oo rivals ay yihiin dabcan siyaasadda oo ay aad u soo tartameen ayuu kaga hadlayaa sidii uu ugu guuleystay sidoo kale waxa uu kaga hadlayaa waxbarashadiisii iyo nolosha dadka Soomaalida ah ee dalka Kenya iyo sida ay sharciyadu ugu dhiban yihiin iyo sida loo midabta koora dhammaan arrimahaas kaga hadlaya waxa kale oo kaga hadlaya saaxiib waxay tahay loyalty oo ah siyaasadda iyo sida aad daacad ugu noqon karto qofka aad wax isku darsateen ama aad wax wada leedihiin si aad daacad ugu noqoto arrimahaas ayuu kaga hadlaya waa book aad ka heli kartaa hadda any library oo Kenya ama any book store oo dalka Kenya ayaad ka heli kartaa luqadiina ingiriiska ay wax ka bedeli doonaa waa qof Soomaali ah waa qof aad noloshiisa sidoo kale la falgali kartid markaana aad fahmi karto oo aad la dareen noqon karto marka haddii aad rabta in aad siyaasadda wax badan ku ogaatay isla markaana luqada ingiriiska aad barat because waa qof Soomaali ah luqada ingiriiska ayuu ka hadlayaa marka siyaasadda waxaan si gaar ah bugan ugu dhiirigelinayaa ardayda barata siyaasadda jaamacadaha kala duwan ee Soomaaliya ama dalka Kenya sababtoo ah waxaan rajaynayaa inaanu jirin siyaasi geeska Afrika oo ka mudan in aadan bare ducaale lagu dayda adigu waxa laga yaabaa in aragti gooni aad ka qabto laakiin aniga that's what I believe in uu yahay qof ku dayshan badan sababtoo ah wuxuu ku survive gareeyay baba uu la soo shaqeeyay dawlado kala duwan dalka Kenya xukuumada kala duwan madaxweynayaal kala duwan kuwaasi oo uu saameyn ku yeeshay waana mid ka mid ah dadka loogu ixtiraamku badan yahay gudaha dalka Kenya marka ay noqoto siyaasadda isla markaana waqti badan ayuu soo ahaa majority leader waa taqaana aadan bare ducaale mar raba inaan faaniyo laakiin that's who he is marka bugiisa for the record saaxiibayaal haddii aad rabto inaad luqada ingiriiska barato isla markaana aad ku akhriso sheeko qof Soomaali ah fadlan Kenya waxaan rajaynaa dhammaanteen in eheladeen iyo asxaabteena ay Kenya ku nool yihiin waan u dirsan karnaa a copy of for the record of aadan bare ducaale bugiisa marka haddii aad rabto luqada ingiriiska inaad barato isla markaana noloshaada aad improve garayso oo ka dhalinyaranimo aad guul ka gaarta for the record aadan bare ducaale saaxiibayaal ayaan idinkula talina waa bugeeni shanaad bugeena lixaad oo ah bog ugu dambeeya sidoo kalena waa bogaad wada taqaanaa sidoo kale saaxiibayaal waana bogan I hope inaad taqaanaan bogan waa taqaanaan qofna sheegid uguma baahna waa bog loo yaqaana Atomic Habit waa lagu soo celceliyay waa lagu soo celceliyay mar raba inaan ku fogaado saaxiibayaal mana raba inaan aad u dhexgalo waqtan dhamaantood waxaan idin tusinaa kaliya waxaan raba inaad ciwaanka fahantaan isla markaana aad saas u soo iibsa mar raba book review kuma sameyn kara laakiin bogan Atomic Habit saaxiibayaal waa taqaanaan top notch marka ay noqoto saaxiibayaal tiny changes amaba sida nolosha loo horumarin kara Atomic Habit saaxiiba an easy and proven way to build a good habit and break bad ones oo sida ugu fudud loo dhisi kara caadooyin wanaagsan isla markaana lagu burburin kara caadooyinka xun waxaa qoray James Clear waana mid ka mid ah buugaagta over 8 million copies sold oo ah in ka badan 8 milyan oo copies ayaa buugan hore loo iibsaday waana international best seller luqada ingiriiska ayuu ka caawin doonaa inaad si fiican uga hadasho ama aad muraajacaysa isla markaana noloshaada ayuu wax badan ka bedeli doonaa buugan oo aad taqaana Atomic Habit haddii aan wax yar dulmar ku sameeyo inkastoo aanu ahayn in mowduuca aanu la xiriirin in aanu dulmar ku sameyno buugani wuxuu ka kooban yahay 20 cutub iyo 110 bog qoraaga buugan waxa uu kugu soo bandhigayaa sababaha ay isbedelada yaryari ay u horseedi karaan guulo waaweyn oo noloshaada ah waxa uu sidoo kale xoog saarayaa sida ugu fudud ee loo dhiso caadooyin wanaagsan iyo sida kuwa xun loo tirtiro isla markaana loo joojiyo marxaladaha kala duwan ee loo maro caado kasta oo la dhisayo xeerarka loo maro in la dhiso caadooyinka wanaagsan iyo sidoo kale in la joojiyo kuwa xun ayuu si ballaaran buugani u dul istaagaya amaba dhiganahani oo sharxaad guud ugu bixinaya saaxiibayaal qodobka lixaad waxa uu kaga hadlayaa sidoo kale xeerarka dhisidda caadooyinka wanaagsan 4 ayuu u kala qaadaya oo ah kow in aad ka dhigta mid ku muuqda isla markaana adiga ku muuqda oo aad dareemaysa in aad u baahan tahay caadadaas wanaagsan laba waxa uu ku leeyahay waxaad ka dhigtaa mid fudud isla markaana ay fududahay in la bilaabo saddex waxa uu leeyahay waxaad ka dhigtaa mid soo jiidasho leh afar waxa uu ku leeyahay waxaad ka dhigtaa mid ku raali gelinaya adiga sidoo kale waxa uu kaga hadlayaa saaxiibayaal isla xeerkani sida loo gooyo caadooyinka xunxun oo naftaada isla markaana looga gudbo waxa uu ku leeyahay saaxiibayaal kow waxa uu ku leeyahay inaad ka dhigta
mid naftu ay ka sasaysay isla markaana naftu aanay jeclaysanaynin isla markaana waa inaad ka dhigtaa mid aan soo jiidasho lahayn isla markaana naftaada aanan soo jeedinaynin oo aanan qurxinaynin saddex waxa uu ku leeyahay waxaad ka dhigtaa mid adag isla markaana caado adag oo aan la samayn karin afar waxa uu ku leeyahay waxaad ka dhigtaa mid naftu aanay raalli ka ahayn marka waana goynta caadooyinka xun marka aad goynayso waxay u baahan tahay inaad qaadato istiraatiijiyad isla markaana aad ka dhigta caadadaasi mid aan naftaada u wanaagsanayn diintaada aan u wanaagsan waa inaad adi suun suuro xumaysa caado kasta oo ay naftaadu leedahay saaxiibayaal haddii aad rabto inaad goyso waa in aad suuro xumaysa wax kasta adduunka yaalla marka la suuro xumeeyey ayay daaqada ka baxaan isla markaana ay noqdaan wax aad u fool xun marka haddii aad leedahay caado xun isla markaana aad ku daalan tahay inaad goyso amaba aad ku wareersan tahay inaad goyso waxaad ka dhigtaa caado aad iyo aad u qaabdaran isla markaana naftaada iyo diintaada iyo mustaqbalkaaga iyo noloshaada aan u wanaagsanayn iyo qoyskaaga markaasi waxaa soo wanaagsanaan doonta caadadaasi in aad goyso isla markaana kuu fudaan doonta in gabi ahaanba aad daaqaad ka tuurta caadadaasi isla markaana noloshaada wixii intaasi ka dambeeyey aad heer ka gaarta saaxiib yaal muuqaalkan ma rabo inuu ila dheeraado dabcan wuuba dheeraaday waxaanu kaga hadlaynay sidee wax loo bartaa isla markaana waxa aad barata loo xifdiya isla markaa waxaanu kaga hadlaynay 6 buug oo kala duwan isla markaana luuqadda ingiriis ku qoran kuwaasi oo luuqadda ingiriiskana aad ku improve garayn karta isla markaana noloshaada wax ka bedeli doonta 6 buug saaxiib yaal aan idinla wadaagay ujeedadeedu ma ahayn inaan review ka sameeyo amaba aan idin waxa ay ka hadlayaan aan idin sharxa kaliya waxa uu ahaa dulmar yaro kooban iyo ciwaanada inaan idin sheegay sababtuna waxay ahayd muuqaalkii kan ka horreeyay waxaanu kaga hadlay sidee loo bartaa luuqadda ingiriiska waxaana shardi ahayd in qofka uu helo buug luuqadda ingiriis ku qoran isla markaana uu akhrisan karo waana sababta aan idinku soo dooray 6 buug saaxiib yaal oo aan islahaa dhalinyarada Soomaaliyeed noloshooda waxna ka bedelaan isla markaana luuqadda ingiriiska kaga faa'iideysan waa 6 buug oo aad si fudud ku heli karta isla markaana haddii aad joogto Kenya aad dalban karta online haddii aad joogto Soomaaliyana supermarketyada iyo meelaha waaweyn ee Soomaalida aad ka heli karta marka buugaagtan ayagoo PDF ayaad sidoo kale qasam ah inaad hard copy hesha you can find them PDF ayaga dhan online I'm not sure inaad for the record of Aadan Bare Ducaale aad heli doonta laakiin the rest of the books I'm sure waad heli doonta ayagoo PDF ah maybe oo ah the right copy waxa laga yaabaa qaarkood oo modification lagu sameeyay ama la soo bedelay in internetka aad ka aragto laakiin waxaad xaqiijisaa in buugaagtan dhammaantood aad isku dayda si aad luuqadda ingiriiska u improve gareysa isla markaana aad noloshaada u bedesha aad mahadsantahay Cabdijaliil Cusmaan ayuu magacaygu yahay Cabdijaliil Bro ayaad igala socotaan janaalkii dhalinyarada Soomaaliyeed iyo tiknoolajiyadda wiilashii gabdhaha halkan ku xirxan idin waan idinkaga mahadcelinayaa markasta sida aad noogu soo biirtaan fadlan markasta oo ay bataan dadka nagu xiran janaalkan ku xiran waa markasta oo aan waqti aan geliyay inaan muuqaal idin soo gudbiyo kaasi oo waxtar idin leh isla markaana noloshiina wuxuun ka bedeli doona marka muuqaal dambe haddii aad iga rajaynaysaan oo aad rabtaan inaan idin soo sameeyo fadlan just subscribe noo sameeya insha allah waxaad ogaataan in dhalinyarada Soomaaliya naga daawata aan lacag laga samaynin YouTube-yada sababtoo ah Soomaaliya iyo Djibouti iyo Ethiopia meelaha laga daawado muuqaalada Soomaalidu monetization dadka uma soo saara marka haddii aanay monetization ku soo bixin waxa ay ka dhigan tahay in aanan waxba ka faa'iideynin isla markaana aan YouTube-ka lacag laga samaynin marka wax kaliya laga sameeyo waxa ay tahay in dadku ay kordhaan marka si aanu muuqaalo badan noogu dhiirigeliso fadlan ka mid noqo asxaabta ku xiran Cabdijaliil Bro dhalinyarada ayuu gaar u yahay waxaan leeyahay janaal kale oo la xiriira arrimaha siyaasadda iyo arrimaha bulshada oo la dhahaa Cabdijaliil Show 120 ayuu marayaa marka kana waxaan rajaynayaa in dhalinyaradu ay gaarsiin doonto 120kaasi kun iyo ka badanba si aan maalin kasta u soo fariista isla markaana aan juhdi u geliyo in aan muuqaalo wanaagsan idin sameeyo aad u mahadsantiin saaxiibayaal